14 sano nin xukunka iska fadhi oo xoog iyo afduub ku haysta ood wada taqaanaan waan anugu odaygiisa haysnaa uu markuu qumanaa madaxweynahaygii ah oo waxaa jira saacad walba ka hadlahaya dimuqraadiyad iyo dawladdan waqtigeedii baa dhammaaday madaxweyne 4 sano joogo mandatekiisa haysta yuu leeyahay waqtigii baa kaa dhammaaday 14 sano isagu jooga wax la hadli karana aabihii lahaa lagu guba ma jiro waxaad ogtiin senatorri iyo siyaasiyiin intuu xidhay 1 sano iyo siyaado inuu iska haystay isagoon maxkamad geynin oon meel la marin annagu bannaan joog baana odayaasha waddankaana ma tegi karo kuwa odayaasha ee la jooga askar weeye ma hadli karaan waxaanaan diidanahay ma dhihi karaan waxaanaan doonaynaa ma dhihi karaan waddankii Jubbaland la dhihi jiray 10 kilomitir oo isku weer ah gacantiisa kuma jirto meelo degmada Kismaayo kale oo dhinac walba 4 kilomitir 5 kilomitir intuu baabuur qaata meel uu tagi karo oo degmo ah oo kale ma jirto intuu dhulka maro 1,000 kilomitir 2,000 kilomitir xukuma yumiiska la soo fadhiisan oo mandate haysto oo dadkoodu jecel yahay oo dadkoodu soo doortay madaxweynaha ummadda Soomaaliya ay soo dooratay isagu uu soo doortay oo mandate haysto yuu wax ka sheegayaa marka Soomaaliya ninka nalala arko waxa meesha nagu haysta Soomaaliya nalala arko waxaaba ceeb ah oo wax laga yaxyaxa markii intibaan doogi iyo maxbuusnimada laga qaaday loo yeeray uu yimid askartii wuxuu doonay baa soo qaato xalana iyo dhax fadhiistay halkan oo shirku ka dhicay buu leeyahay berina muxuu soo wadaa hal aada Kampala Nairobi hal aada Addis Ababa tanuu soo wadaa fikir shisheeye wey waan ognahay madaxweynaha Soomaaliya waxa hayeelin bi waay fulinimo kuguma oginayeen ku qaadin maanta waqtigaadina waa dhimaya Soomaalida ku dooratayna waa joogtaa waadna u adeegtay waxaaba wax walba ku filan maanta inaad xamar xor iyo xalaal ka dhigteen waxa wax walba ku filan oo adduunka iyo aakhiraba ku filan in Muqdisho maanta uu qarax ka yeereen meeshii la doono loo dhax qaadi doono xilligii la doono la socon karo anka xalana dhax degan waxaasay ka xun yihiin Muqdisho in doorasho laga qabtay qof iyo cod doorasho qof iyo cod kay hor taagan yihiin dastuurka in la dhameeyo way hor taagan yihiin in doorasho qof iyo cod waddanka ka dhacdo way hor taagan yihiin in waddanka ciidamo loo dhiso oo cunaqabataynta laga qaado oo deyn cafinta laga qaado waxoo dhan way diidanayaan waan isla ognay maxay noo hayaan golka maxay noo yihiin nimanka saasa Soomaali maxay u yihiin waxaaba intaa iga sii daran markay yuhuud aqoonsatay Hargeysa aqoonsatay inay cambaareeyaan iyo inay ka dagaalaan waa diideen waa taageereen weliba waxba samata bixin baa nala dhahaa iyo mustaqbal baa nala dhahaa guraha iyo gaalada noo dhax fadhiisanay waa diideen kamaysan hadlin hadday ka hadli waayeen ma sidaas haddana waxay ku rabaan qaarkood inay waddanka madaxweyne ka noqdaan markay hadday madaxweyne noqdaan haddiiba ilaahay siiyay madaxweyne noqdaan haddii yuhuud bay noola gelayaan Soomaali hadalka ha ka fiirsato war Soomaali arrinta ha ka fiirsato war madaxweynaha Soomaaliya oo maanta xukunka adaa jooga